السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا waxaan bixinaynaa channelkeena waxaan idin kusoo gudbin doonaa insha Allah hadduu alraal ka dhigo khudbo lecture about the importance of learning a language. Lecture about the importance of learning a language. Lecture waa khudbo about oo ku saabsan the importance muhiimadda uu leeyahay of learning barashada a language luqadda Ingiriiska barashada aad baranaysid faa'iido uu leeyahay bal aan dhageysano. Gentlemen mudane and ladies mudane iyo marwooyinba. Gentlemen mudanayaal and ladies iyo marwooyin. Good morning subax wanaagsan all of you dhammaantiina. I'm very much aad iyo aad ayaan pleasure ugu faraxsanahay for me aniga to be inaan ahaado the screen saashada of this channelkan shaashadiisa inaan kasoo muuqdo aad iyo aad farxad ay ugu tahay. Today maantana I would like waxaan jeclaan lahaa to suggest here halkan inaan kasoo jeediyo a lecture khudbo about oo ku saabsan the importance muhiimadda ay leedahay of learning a language luqadda Ingiriiska barashada luqadda. So ahaatee listen to me ii dhegeysta politely si edeb leh. Well and nice waxaan u wanaagsan language luqadda is a method waa dariiqad ama waa hab in which kaasoo all the people dadka dhammaantiisaba communicate ay iskula xiriiraan each other kiiba kan kale by means of taasoo macnaheedu yahay system qaabka of sound dhawaaq symbols nooc dhawaaq ah. There is waxaa jira hal xadiis ayaa jira narrated oo laga soo wariyey our prophet Muhammad nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam peace and mercy of Allah be upon him nabadgelyo oo naxariis korkiisa Allah yeelay said wuxuu dhahay nabigu wuxuu yiri he who ninkii ama qofkii learns barta people's language luqad qof uu leeyahay ama luqad dad ay leeyihiin ninkii barta is saved from wuxuu ka badbaadaa their blood hagardaamadooda ayuu ka badbaadayaa. He who wuxuu yiri nabiga he who ninkii ama qofkii learns barta people's language luqad ay leeyihiin dad is saved from wuxuu ka badbaadaa their blood hagartooda. To my conclusion gabagabadeyda I'm exhorting you waxaa idinku boorinayaa to make inaad samaysaan effortful dadaal badan without la'aan reservation shaki la'aan at how sidaad u baran lahaydeen you will understand aad fahmi lahaydeen this language luqadan which is not kaasoo aan ahayn the language luqad that kaasoo we have learnt aan kasoo baranay on our mother's knees luqadii ma aha aan kasoo baranay jilbaha hooyooyinkeena ama jilbaha hooyadeena. Now haddana I'm saying to you that waxaan idin dhahayaa make efforts dadaal sameeya and try isku daya how to study saad u baran lahaydeen this fantastic language luqadan yaab kale. So ahaatee nice to meet you all kula wanaagsan dhammaantiina.